السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلka aad nagala socotaan waa hoyga qisooyinka ee Mushiish Media. Fadlan subscribe adigu wax kuu dhibi mayso, annagana waxaan ka helaynaa dhiirigelin insha Allah. qaybtii labaad sheekadii qaliibkii iyo saddexdii nin. Markii casirkii la gaaray oo qaliibkii soo kulmiyey raggii dhammaa ayuu waxa uu su-aal weydiiyey kii tugsadaha ahaa ee dhahayay qofkii wax isiiyo ha i garaaco. Ayuu su-aal weydiiyey, wuxuu u yidhaahday, maxaa kugu kallifay waxyaabahaas aad ku kicisay? ninkiina wuxuu yidhaahday, qaliifkaygiiow, waxaa jirtooyay qiso ani ii sugnaatay oo arrintan igu kalliftay. haddii aan kuu sheegana in aad i ciqaabto ayaan ka baqayaa. amiirkiina waxa uu yidhaahday, maya, aamin ayaa tahay, wax dhib ah lama kulmaysid, meeshaana ma lagugu dulminayo, ee siday wax u jiraan nooga sheekay. ninkii wuxuu yidhahday, anigu waxaa la yidhaahdaa magacayga abu cabdullaahi, waxaan ku dhashay magaalada baqdaad. hooyaday iyo aabahayb waa ay geeriyoodeen aniga oo dhallinyaro ah. waxay iga tageen xoolahaas aad iyo aad ayaan u jeclaa, waan dhaqaalayn jiray. dhallinyaronimadana ma igu kallifin in xoolihii ay iga tagaan aan ku ciyaaro, laakiin waxaan ahaa beddelkeeda nin xoolaha jecel oo baqiil ah, qofna aan waxba siinin, nafsadiisa keliya u daneeyo. waxaana xoolihii ku jirtay 80 rati. 80kaas rati waxaan samayn jiray, dadka musaafurka ah ayaan ka kiraysan jiray, lacag fiicanna waan ka qaadan jiray. sidaas ayadoo caadada ii tahay ayaa maalin aniga oo safar ka imaaday geeligii daajinayo ayaa nin musaafur ah oo darwiish la yidhaahdo oo culumonimo ay ka muuqato ayaa ii yimid. waan isalaannay, waana sheekaysannay. wuxuuna ii sheegay in darwiish la yidhaahdo. waxaan ogaaday ninka inuu nin wadaad ah, culummo yahay, musaafurna yahay. raashinkii uu watay iyo keygii ayaan isku darsannay, waana wada connay. annagoo iska fadhinna oo sheekaysanayno ayaa sheekadii waxaa soo gashay oo darwiish igu yidhaahday, niyaho waxaa jirto meeshaas oo kayd badan u yaala dahab ah. haddii 80kaaga rati la geeyana in wax laga qaaday loo malayn maayo, oo sida uu u badan yahay. ee ka waran haddii aan meeshaas isku raacno oon dahabkaas soo rarno. shaki ayaa i galay oo waan ka shakiyey. haddana shakigaygii waxaa ii diiday damacayga faraha badan oo waxaasoo dahab la sheegay. nafsadeyda in ay beenaysato waa ay diiday. waxaan dhahay, waa yahay nageey 80ka rati, hal rati ayaan kaa siinayaa. waxa uu yidhaahday, maya, adigu waxaad leedahay geela, aniguna meesha iyo waxyaalaan kaydka ayaan aqaanaa. haddii aad ogoshahay waan soo qaadanaynaa. 80ka rati waxay qaadaan ayaan ku soo qaadanaynaa. adiguna 40 ayaad leedahay, aniguna 40 ayaan leeyahay. anigu boqo amiirow waxaas waan ku qanci waayey, oo 40ka rati oo darwiish qaadanayo ayaa dhib iigu fileed. haddana waxaan ka baqay haddii aan diido in aan la kulmo, ama oo ii diido in uu i geeyo meesha uu kaydka yaallo. waan yeelnay, waan israacnay, waxaan aadnay meeshii uu kaydka noogu sheegay. intii aan sii soconay dhul badan ayaan goynay iyo waadiyaal. kadibna waxaa imaanay meel buuro ah. buurihii jamal ag ku dhex yaallay ayuu istaagay. dab ayuu shiday, wax ayuu ku shubay, qiic ayuu ku shubay. kadibna wax ayuu akhriyey, waxaasoo aniga waxbana aan ka garanaynin ayuu akhriyey. kadibna jabalkii waa uu furmay, mise waxaaba ka muuqda meeshii qasri aad iyo aad u weyn, aad moodidba qasri boqortooyo. waxaana weligay arkin. gudihii ayaan galnay, waxaa yaala dahab aad iyo aad u fara badan. kadibna ratiyaashii ayaan rarnay. 80kii ratiba mid kasta intii uu qaadi karay ayaan saarnay. kadibna waan soo baxnay aniga oo meesha fiirfiirinayo, la yaaban meeshii 80ka rati oo dahabka ahaan ka soo rarnay in hal shay laga qaadayba lama moodo, oo la tacajabsan ayaan waxaan arkay darwiish oo alwaax yar, sanduuq yar oo alwaax ka samaysan qaaday. kadibna jaabkii ayuu gashaday. waxaan dhahay, muxuu yahay? asagana wuxuu yidhaahday, waa shay nacfi leh. waan soo soconnay, waan soo baxnay meeshii. wuxuu akhriyey wuu isxiray, mise waxaad mooddaa waa buuro, meel guri ahba maba ahanba.
si aan u soo soconnay ayaan waadiyaashii soo goynay. Meeshii markaan imaanay ayuu wuxuu yidhaahday adiga waxaa ku leedahay 40 rati, aniguna waxaan leeyahay 40kaygii. Sidaas ayuu nagu kala qaybiyey. Markii uu baxay aniga aad iyo aad ayaan ugu qanci waayey. Waa ka daba noqday, darwiishow niyo adiga waxaad tahay nin culummo ah, nin adduunyo jecel ma tihid waan ku ogahay. Ee ka waran haddii 40 qismigaada kugu soo aaday aad 10 rati iga siisid. Waa uu qoslay, wuuna dhoola caddeeyey. Waxauna igu yidhaahday, wixii aad jeceshahay ka qaado geelan. 10kii rati ayaan soo qaatay. Asaga oo faraxsan ayuu baxay. Waan la yaabay. 30kii uu qaatay haddana nafsadeydu waa isii weysay in aan ka hadlo. Waan ka daba qayliyey, waan ka daba orday. Haddana asaga oo qoslay dhool caddaynaya faraxsan ayuu isoo fiirshay. Waxaan dhahay niyahow nin culummo ah ayaa tahay, dagaal kama taqaanid, waddadaana tuugo ayaa gasho. Haddii ay kula kulmaanna in ay ku dhibaateeyaan, geela kaa dhacaan ayaa laga yaabaa. Ee ka waran haddii aan kuu fududeeyo oo 10 aan kaa qaado 20 aan kuu reebo, sidaas amay ku kheyr badan tahay. Wuxuu yidhi waxa aad jeceshahay ka qaado. 10kii rati kale ayaan soo qaatay. Anigoo 60 wato iyo asagoo 40 wato 20 wato ayaan kala baxnay. Laakiin nafsadeydu way ku dhiib noqon weysay. Haddana hadallo wanaagsan ayaa ula noqday. 20kiiba waan ka soo qaatay. Asaga oo faraxsan ayuu iga tegey. Waxa uuna yidhaahday niyahow xooluhu waa dhib badan yihiin. Hadduu ilaahay qani kaa dhigay, ku raali ahaw qaninimadaada. Dadka masaakiintana wax sii. Haddii aad wax siisid ilaahay wuu kuu barakaynayaa. Ogowna soo hadda ilaahay taajir kaaga dhigay ayuu faqri kaaga dhigi karaa. Waan soo tegay aniga oo faraxsan, hortaydana taajirnimo iga muuqato, kuna fakeray dadka ugu taajirsan ayaan ahay, ayaa shaydaan i waswaasiyey. Waxa uu yidhaahday niyahow adigu geelii iyo dahabkii badnaa ayaa soo qaadatay. Laakiin darwiish waa aragtay asagoo faraxsan oo shay inay ka lumaan aadan moodin ayuu baxay. Malaha shaygii uu qaatay ayaa waxaanoo dhanba ka kheyr badan. Ee ka soo qaado, waan ka daba ortay. Waxaan dhahay niyow darwiishow nin wanaagsan oo culummo ayaa tahay, nin adduunyo kale jecelna ma tihid. Alwaaxii yaraa nacfiga lahaa aniga ayuu anfacayaa ee ma isiisid. Waxa uu yidhaahday aniga weligay qof waxa uu weydiistay uma diidin. Haddii aad umadayda weydiisatidna waan ku siinayaa. Shaygii ayuu i siiyey. Waan furay. Budo ayaa ku jirto. Waxaan dhahay niyahow waxaan sida loo isticmaalo. Waxaan u malaynayaa saaxiib wanaagsanaad tahay in aadan iga qarinaynin. Wuxuu yidhaahday isha bidix aad marinaysaa. Kadibna waxaad arkaysaa kanziga ama kaydka adduunka dahabka aysan dadka arkaynin ee adduunyada kor saaran ayaa ilaahay ku tusayaa. Laakiin ogow isha midig ha marin. Haddii aad mariso waa indha beelaysaa. Kadib ishii bidix ayaan mariyey. Waxaan la yaabay dhagaxyo caadi u haystay iyo meelo iga qarsoonaa oo dahab uu ka wada buuxo. Waxaan wata wax ka badanba ayaaba arkay. Aad iyo aad ayaan u farxay. Waxaan isdhahay haddii aad isha kala marisid ka waran. Ishii kale inaan maray anuu rabo ayaa waxa uu yidhaahday maya, isha midigta aha marinin. Waan kuu sheegay. Waxa laga yaabaa waa ku indha beelaysaa. Waxaan dhahay isha bidixda wixii aan ku arkay waxaanoo dhan isha midigdaasay ii tirayaan. Waxaad iga qarinaysaa iga tag. Waxaa igu yaraatay in aan rumaysto warkiisii oo waan beenaystay. Kadibna ishii midig ayaan mariyey. Markii aan mariyey ayaan indha beelay. Waan ka daba qiilshay. Horniyow darwiishow adiga dulmi ma aada samayn. Si wanaagsan ayaa wax kas igu sheegtay. Waad igu dhaadhicisay. Anaana kaa rumaysan waayey. Horniyow haddii aad taqaano wax indhahayga igu soo noqonayaan ii sameey. Wuxuu yidhaahday indhaha ilaahay ayaa awood leh. Awooddiisa ayuuna ku soo celiyaa. Aniguna tabartaas ma hayo. Laakiin adigu nin kheyr qaba ma ihid. Geelan iyo dahabkaana waan kaa qaadayaa. Dad ku intifaaco oo kheyr leh ehlu kheyr ah ayaan ku wareejinayaa. Adiguna ehlu kheyr ma tihid. Geelii iyo wixii dhanaana wuu didsaday oo iga watay. Meeshii cidlada ahayd ayuu iga tegey. Anigoo meeshii joogo ayaa musaafir soo maray. Musaafirkii ayaa i soo kaxeeyey. Magaalada Baqdaad ayay i keeneen. Kadibna sidaas ayaan waxaan ku noqday tuugsado. Sidaas ayaan qof walba aan tuugsado markuu xaysiiyo ciqaab i mari u dhahaa si dhibaatadii aan geystay liiga jaaseeyo. Amiirkii ayaa yidhaahday niyow sheekadaadu waa sheeko cajiib ah. Waxaa samaysay dulmi aad iyo aad u fara badan ayaa samaysay. Ilaahay ayaana dulmiga iyo dembiyada cafiyo. Ilaahayna waxaan rajaynaynaa inuu kuu dembi dhaafo. Araggaagiina uu kuu soo celiyo.
laakiin anigu wax kuuma awoodo. Waxoogaa hanti ayaan ku siinayaa, hantidaas aad ku soo celisid. Odaygii asaga oo faraxsan ayuu meeshii ka tegey.